shirkan gaarka uu shirgudoominayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa looga hadlayay dardargelinta taageerada beesha caalamku ay siiso Soomaaliya si loo xoojiyo horumarada kala duwan ee dawladda Soomaaliya ka samaysay hanaanka maamulka maaliyadda, amniga, la dagaalanka musuqmaasuqa iyo maamul wanaagga dawladnimo. isla markaan loo taageeri lahaa qorshayaasha waaweyn ee dawladda Soomaaliya doonayso inay ku horumariso dalka ka uu saldhig u yahay in maalgashi lagu sameeyo dalkeena. shirka ay ku sugnaayeen xubno ka socday dawladaha caalamka ee taageera Soomaaliya ayaa lagu soo bandhigay horumarada kala duwan ee dawladda Soomaaliya samaysay sida hufnaanta maamulka maaliyadda, amniga, dhismaha ciidanka qalabka sida, xiriirka dawladda dhexe iyo dawladaha xubnaha ka ah taa oo si weyn u soo dhaweeyeen ka qaybgalayaasha ka socday beesha caalamka ee ka qaybgalay shirka. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo ka hadlay shirka ayaa xusay in dawladda Soomaaliya horumar weyn ka samaysay qorshaha dhismaha ciidanka qalabka sida, qaybtii ugu horeysana ay maamulka Puntland ku soo wareejiyeen dawladda dhexe taa oo ka dambeysay ama suurto gelisay wada shaqaynta wanaagsan ee ka dhaxaysa dawladda dhexe iyo dawladaha xubnaha ka ah. ra'iisul wasaare Khayre ayaa tilmaamay in dadka Soomaaliyeed looga baahan yahay inay dhistaan ciidan qaran dhawaana la soo bandhigi doono tirada rasmiga ee ciidanka xoogga dalka si loo ogaado baahiyaha ay qabaan waxna looga qabto. beesha caalamka ayuu uga mahad celiyay taageerada ay siiyaan Soomaaliya. xubnihii ka socday beesha caalamka ayaa si weyn u soo dhaweeyay isla markaana wax lagu farxo ku tilmaamay horumarka dawladda Soomaaliya ka samaysay hufnaanta maamulka maaliyadda iyo bilowga diiwaangelinta ciidanka qalabka sida ee mushaarkooda lagu bixinayo akoonada sida uu warbaahinta qaranka u sheegay wasiirka wasaaradda warfaafinta, dhaqanka iyo dalxiiska injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow. marka si caalamku u bixiyaan dhaqaalihii loo baahnaa waxaa shuruudda ahayd kow in wasaaradda maaliyaddu ay hagaajiso sida ay u maamusho maamulka maaliyadda, labo in la kordhiyo dakhliga dalka oo canshuuro la qaado si Soomaaliya loo gaarsiiyo xaalad ay isku filnaato dhaqaale ahaan, iyo saddex lacagta yaroo ay hayso sidii u maamulayso oo gaar ahaan ciidanka in mudnaan gaara loo siiyo. arrimihii oo dhan ayaa muddo 8 bilood wasaaradda maaliyadda iyo bangiga adduunka iyo hay'adda lacagta adduunka ka wada shaqaynayeen. maantana waxaa wasiirka iyo madaxa bangiga adduunka warbixin ka bixiyeen inay xaaladdu meel fiican marayso, Soomaaliyana ay ku dhowdahay dhawaan in laga cafin doono deymihii lagu lahaa, kuwaasoo keeni doonta in horumar iyo dhaqaale badan Soomaaliya lagu siiyo wadooyinka iyo dhisidda hay'adaha dawladda, taasoo shaqo badan abuuri doonta. marka waxaa maanta la soo dhaweeyay horumarka laga sameeyay dhanka maamulka maaliyadda, gaar ahaan sida ciidanka muxuu ahaa loo maamulay maaliyaddooda. waxaan lagu ballamay in la sii joogteeyo nidaamkaas oo maamulka iyo maareynta maaliyadda, caalamkuna uu ballan qaaday in wax laal wixii dhaqaale iyo taageero uu bixin doono. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, Muqdisho.